كمباني سوم سنترال وحواي كمباني أو مطعم محلي هواية شغلة مطعم waxay isku xil saareen in garoonka uu dhismadiisa bilaabo garoonkana mataqaana markii hore oo garoonka uu fiisan loo diray oo galmudug aan soo xilqaanay galmudug dowladda galmudugna ay noo dirtay markaas garoonka dhismadiisa aan bilownay ha yeeshee wax qalab ah oo dalka yaalay oo meesha noo yaalay oo wax laga dhisay ma jirin qalabka markaas waxaan bilownay marka inaan qalabkii diyaarino qalabkii oo waddanka dibadiisa aan ka keennay oo ugu shaqeeyo imaaraadka china talyaaniga india waxaasoo dhan aan qalab ka keennay iyo waddamo kale dekedan ugu sokayso waxaan kasoo dejinayna barbare aheyd iyo boosaaso adiga qalabkii markii aan soo diyaarinay garoonka dhismadiisaan haddana bilownay markaan garoonka dhismadiisii bilownay haddana laamigii iyo waxyaan keennay waxaan rajaynaynaa ilaa idankiisa kambaniga inuu maaragtay hadda kabacdiyo socday waa gabangabo garoonka waxa waaye 3 kilomitir oo runway ah waa kala qaybnay qayb waxa waaye waa lagu degtaa way shaqaynaysaa diyaaradaha ku degtaa si aan maqaana socodka iyo isgaarsiinta aysan u dhumin qaybna shaqada ka socota kilomitir bar ayuu ku qaybsan yahay aqaas markaa sidaasay ku socotaa si qorshoon oo gabangabo ah maraa markuu waxaan rajaynaynaa inuu maqaana soo afjarmo xaaladda garoonka saas waaye iyadoo qorshahan uu yahay maqaana horumarinta dalka oo dhan iyo deegaanka oo dhan inuu maqaana yani garoonka kaliya ma ahayn يعني laga shaqaysiyo oo mataqaana garoonka markuu dhamaado haddana mashaariicda kale waxaas lagu horumariyo looga shaqeeyo qalab dhismo tayaale waaye marka ujeedkan uu saas waaye wata maxaa laga soo maraa marka dhismaha garoonka Ugaasnuur in laga shaqeeyo oo qalabkan casriga ah keentaan maxay ahaayeen qalabyadii kale ee keenteen qalabkan hadani oo markii hore anaga ma aan hawsh bilaabaynay waa arkaynay inaan qalab wax laga dhulmo iskara meesha oo lin hasayeesho waxaan ka fikiraynay waxaan meesha soo baxay hal shay oo kaliya oo la isticmaali karo waa weynay xamaraan ka weynay waxa uu noqday markii aan dalka dibadiisa ka keeno inaan China iyo mataqaana Talyaaniga Hindiya imaaraadka inaan ka keeno barbara iyo boosaaso ka soo dejino yani waxa noogu dhibka badan oo ka soo marnay waxa waaye kambaniga shaqadiisa waxa nooga dhibnaa agabkii lagu shaqeyn lahaa oo casri ah oo garoon fiican oo qiimo leh oo tayo leh lagu dhisi karo taasaan ugu darnaa culays ugu badan oo mataqaana aan ka soo marnay sidaas waa wata hadda adeegyadii u baahnaa dhismaha garoonka dhammaan gacanta ku haysaa Soomaa wax qalab ah oo banaanka laga doonayo mar dambe ma jirto dhismo un baa la wadi karaa maahan wax qalab oo damo banaanka lagu doonayo ma jirto warshadii laamiga ayaa la ku taagayaa la birta cusleedo dhamaata oo noocyo badan ah marka warkaasa wata garoonkan dhismihiisa hadda goorma qorsheynaysa inaad soo gabagabaysaan muxuu ka bedeli doonaa dhinaca horumarka galmudug garoonka horta dhismadiisa waxaan rajaynaynaa fayska koobaad inuu markuu aduu bishaan juun oo bishaan hadda may juun oo soo gabagabo fayska koobaad waxa uu noqonaa fayska labaad iyo fayska koobaad oo noqonaa fayska koobaad soo gabagabeynaya juun dhexdeeda markaas waa garoonka 15,500 oo mitir oo hadda lagu dego ayaa loo wareejinaa 15,500 oo hadda la dhisanaa diyaaradaha ka degaya waxaan rajaynaynaa haddii la yiraahdo inay wax badan iska bedeli doonaan oo mataqaana hadda dhibaato oo lagu qabo garoonka oo mataqaana fadar lagu degto oo aan diyaarsanayn rajaynaynaa inuu galmudug kusoo kordhi doono oo horumara dhismaha wuxuu noqon doonaa runwayga lagu ordo hadda aad bilowdeen mise waxaa jira adeegyo kale oo lagu darayo qaab nuucee ayuu noqonayaa airport maya garoonka waxa waaye runwaygana waa la dhamaystirayaa waa lagu soo terminaala jiraayo tower jiraayo baakina jiraayo taxiway jiraayo waxaasoo dhan garoon dhamaystirana meesha laga rabaa haddii la yiraahdo oo caalami ah si guud marka ilaa intee qaadanaya qiyaastaada maadaama oo qalabkii hadda uu noo yaallo waxaan rajaynaynaa sanadka dabayaaqadiisa inaan dhamayn doono terminaalka iyo qaybaha runwayga ka dhiman haddii la yiraahdo sidaasaan qorsheynaynaa wata marka la eego Som Central Construction Company-gan adeegyo kala duwan oo ka qabtay dhinaca horumarada galmudug maxaa rajaynaysaa waxaan rajaynaynaa ama qorshahan uu yahay bas mataqaana horumarinta deegaanka iyo dib u dhiska inuu qayb weyn oo lixaad inay ka qaadato Som Central insha Allah